كل تورا إنسان صاحب بيال من البلد داون إنسان كسر وهذا حقيه قدام بيه هذا ما حنصب ما أنت مجالنا كسمايو إحرمتا قبل كجبله هوسه وحاك قبصومي دبدح بلارن أو سوء أبابري مدحويني هراء إمام الكجبلان أحمد محمد إسلام أحمد مذوبي بقول الله القف أيال لا يسكوجو سوء بحيو لا يسكوجو كيري جرونك كبد عكتا مجالنا كسمايو لبا الريموت وعقبت وين كوا أحمد محمد إسلام حنان كيسا isku caano shubka iyo sidoo kale qorshayaashiisa gaarka u ah ayaana gundhig u dibadbaxan boqolaalka qof ee la iskugu keenay garoonka kubadda cagta ee magaalada Kismaayo waxaana dul istaagi doonaa qodobkeena koowaad ayaan ku iftiimin doonaa qorshayaasha Axmed Madoobe arrimaha uga gol leeyahay dibadbaxani boqolaalka qof ee la iskugu soo saaray magaalada Kismaayo baaqyada ay direen iyo sidoo kale culayska siyaasadeed ee Axmed Maxamed Islaam uu dareemay ee uu adeegsanaya dadka masaakiinta shacabka ee maanta uu iskugu soo saaray ayaan dul istaagi doonaa hadda waa la idmo dagaalka siyaasadeed ee Axmed Madoobe iyo dawladda federaalka Soomaaliya xagee maraya gaar ahaan waliba dagaalkii siyaasadeed ee gobolka Gado kii Jubbada Hoose waxaan ogsoonayn in Axmed Madoobe uu ku guuleystay oo dawladda federaalka looga gacan sareeyay walow wali ay xaaladdu taagan tahay dhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeedana gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan deegaano degmada Badhaadhe hoos yimaada wali ay ka taagan yihiin laakiin qorshihii dawladda ugu weynaa waa Raas Kamboni waa ku fashilmay haddaba dagaalkii Gado iyo kii Jubbada Dhexe xagee maraya yaa ku gacan sareeya dagaalkii Doolow maxaa lagu xaliyay dawladdu ciidamadii ay geysay Beled Xaawo iyo sidoo kale Baar Dheere maxaa u suurtagalay halkay ku sugan yihiin iyadana waan iftiimin doonaa haddii alla idmo soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga ayna ku bilownahay horta maanta magaalada Kismaayo dibadbax ballaaran oo boqolaal qof ay isku soo bixeen ayaa horta ka qabsoomay dadkan waa dad la diyaariyay dhowrkaas buuc ugu dambeeyay la jafayay dhinacyo badan baa laga soo jafay waa la kala tafniiday intii markaas wax laga dhaadhicin karay ayaa garoonka kubadda cagta ee magaalada Kismaayo maanta la iskugu keenay dibadbaxan laba arrimood buu Axmed Madoobe uga gol leeyahay waa mid koobaad waa cabasho xayiraada la saaray ee dhanka cirka ee diyaaradii aysan ka soo degi karin magaalada Kismaayo waa qodobka koobaad waa qodobka labaad ee waa dowlatus shacab ay taageersan shacab ayaa taageersan waa dowlatus oo tusinaya daneeyaasha siyaasadda Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya dadkaysa ka soo horjeeday mucaaradka ee khaladaadka dhacay iyo isku caana shubkiisaba ka hor imaadsan ayuu dowlatus uga dhigaya labadaas arrimood ayuu horta Axmed Madoobe uga gol leeyahay Axmed Madoobe sida wada ogsoontiin baxayiraad bay dawladda federaalku saartay oo dhinaca cirka ah isagana waa xanuunsan yahay oo wuxuu rabay inuu isbitaal Jarmalka uu aado isbitaalkii waxaa la yiri diyaarad qaadi kartaa ma jiro kama bixi kartay magaalada Kismaayo diyaarad intay toos u imaato Kismaayo ka soo degi kartaa iyadoo Muqdisho soo marin ma jirto tiin Muqdisho soo maraysayna waxaa la yiri waa la xanibo waxaa la yiri diyaarad kama degi karto oo maalmahan xanibaad baa saarnaa sidaas awgeed isagiina xanuunkiisa baa siyaaday meel uu ka bixi karana male oo mari karo dhulna uma furna irna waa laga xidhay oo de dhulka argagixisadii baa haysata Axmed Madoobe marka xayiraadaas la saaray taasa marka waxay sababtay inuu shacabkii ku galgasho soo abaabul yiraahdo gudoomiyihii degmada Kismaayo iyo maamulkii hoosaba uu yiraahdo nin walow 100 qof ama 50 qof keen nin walow 30 qof keen nin walow 40 qof keen garoonka soo camira ilaa soo ragal isaga la shaqeeyay nin bay taageero leeyahay qoysaskiisa walaaladii hadduu soo kaxeeyaaba 20 iyo 30 laga yaabaa inay gaadho dad marka isku keenkeena oo mas'uul walba qayb uu soo kaxeeyay saaxiibadiisa iyo dadkii qaraabadiisa iyo caruurtiisa ayaa garoonka kubadda cagta ee magaalada Kismaayo maanta la iskugu keenay arbaa la yiri hadla ambaareeya waxa ambaareysan xayiraada la saaray ee dhinaca duulimaadyada la joojiyay siyaasadda guracan ee dawladda federaalka diida baa la yiri dadka marka dad horta isku keenkeenay ahaayeen dad iskood u dibad baxay oo shacab ah oo ayagu iskood iskugu imaaday oo waxooda iskood isku abaabulay ma ahayn
magaalada Kismaayo markii la yiraahdo taageero oo la qiimeeyo Axmed Madoobe iyo Xasan Toona taageero badan kuma haystaan Xasan lagama jecel magaalada Kismaayo Axmed ka 14 sano joogana lagama jecel magaalada Kismaayo runta markaan ka hadlo shacabku labaduba midkoodna ma rabaan waxay sugi laayihiin isbedel labadaba ku dhaca waxay sugi laayihiin hogaamiye sax ah oo u imaada waxay sugi laayihiin ummadda reer Jubbaland oo la cidii midayn lahayn oo kursiga qabatay sugi laayihiin Axmed Madoobe marka taageero la yiraahdo magaalada Kismaayo boqolkiiba 3 qof xataa kama taageersanay dadku cabsi ayaa hayso ila aamuso yihiin habeenima loo dhacaya hadii ay hadlaan ama wax laga dareemo habeenima inta loo dhacaa bada lagu dhoombinaya dhuluq saasay qofka nafta ku day marka ma hadli karaan marka shacabku joog ma dhigi karaan magaalada Kismaayo dadka jooga haday siyaasiyiin noqdaan haday noqdaan waxa weeye ay noqdaan shacabka bulshada qaybaheeda kala duwan ba joog qof dhihi karaay oo ka daba hadli karaay Axmed Madoobe meelaha uu joogay ma jiro waa nimanka jilib joogo kale argagixisada wax ka daba hadli kara ma jira maya wax ka daba hadli kara ma jiro sidaas si la mid ah weeye horta madaxweynaha hore Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe miduu way fiicantoode amniga in la adkeeyo oo xoogaa la waxeeyo way fiican tahay laakiin ninka amniga adkeynaya ee waxaynaya waa inuu noqdo nin hore socod laho dhul xoreynayo oo wax qabanayo oo bulshada noolaynayo oo iskuulo u dhisayo oo caafimaad u dhisayo oo jidad u sameeyo oo waxa weeye wixii dawlad looga baahnaa u sameeyay Axmed waxbana lagu ma qabo xoriyad qowl lagu ma qabo wax lagu qabo ma jiro bal waliba hadda wuxuu bilaabay inuu dalka dibadiisa xataa oo dadka ku waarsado bilaabay oo uu yiraahdo hebel ha u dira hebel ha niman iraadiya lacagan sino oo la hadado oo dhalinyaradii wariyaashahay barnaamijka ka hadlay qaybkood in la hardado ayaaba la handada la bilaabay oo Axmed Madoobe uu bilaabay si kastaba dibadahan horta labadaas arrimood ayaa looga galaa waxa yiraahdo la saaray iyo dawlad siyaasadeed oo ragga isaga ka soo horjeeda dhinaca doonaba ha noqdee oo tusinayo marka inuu taageero leeyahay midaas horta waa midaa dhinaca siyaasadda iyo loolankii siyaasadeed ee Xasan iyo isaga u dhaxeeyay gobolka Gada ugu dambeeyay xagay wax marayaan yaa ku gacan sareeya siyaasadda marka la fiiriyo horta duqi Xasan ahaa waa kaga guuleystay ninkan waa nin balaayaa weeye nin ciyaar ninka moogtay libintiisa waa loo qiraa ninkan xagga munaafaqada iyo wax isku dirka iyo wax kala furfurida iyo wax kala geynta aad buu ugu horeeyaa aad buu u fiican yahay Xasan marka xagga siyaasadda arrimaha siyaasadda ee Jubbaland waa lagaga gacan sareeyaa walow gobolka Gado wali ay saameyn ku leedahay dawladda federaalku ciidamo fara badan beled xawa ka joogaan ciidamo kale ay ka joogaan Ceelwa Baardheere Garbaharey waxa weeye loo doolow dhammaanba dawladuna wali ay wado ciidamo keenista ay wado saameynna wali ay ku leedahay laakiin boqolkiiba 70 sidii la rabay dawladdu kuma aysan guuleysanin iyadoo waliba ku darsadee Ethiopia heshiis ay dawladdu la gashay haddana wali Axmed Madoobe saameyn buu ku leeyahay gudaha gobolka Gado gudoomiyaal baa la shaqeynaya dhagar qabayaal kala la shaqeynaya balaayo kale taa waxa weeye oo suululada la shaqeynaysa kala furfur buu wali ku jira dhalinyaro waxa weeye soo abaabulay baa waxa weeye hubka hoosto looga dhidhiibaya oo la hubaynayo la qalabaynaya marka wali saameyn buu ku leeyahay sidii dad badani ay filayeen dawladdu wali gacanta uma aysan dhigin hal arrin baana sabab u ah dawladda meelaha ay ka dhaqaaqi laadahay ee laga raaci laayahay wax bixis male waxa ma bixinayso siyaasiyiintii dawladda federaalka la aragtida noqday ee Axmed Madoobe ka cararay gobol walba ha joogaan ilaa iyo hadda afkoodu waa qalalayay war ma been baa soo qora rag badan oo saaxiibada ay daawanayo arrimaha iyaga og siyaasiyiintii afkoodu waa qalalayay oo wariyaashii afkoodu waa qalalayay oo waxa weeye qaaqlayaasha afkoodu waa qalalayay oo taliyaasha ciidanka taageera afkoodu waa qalalayay intii raas Kamboni maalmihii ayaa xoogaa saa loogu dadaadiyay kadibna ma aqaanadii meel ay kala aad wixii muu dhamaaday ma xagaay iska hayo tusbay ahayd la garan maayo marka waliba gaar ahaan si toosan fartay ugu fiiqiya xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa kow ka ah fashilada meelaha ay ka dhacayaan xafiiska ra'iisul wasaaraha wuxuu noqday xafiis aan shahab laga kabanayn koob shaah laga macabayo odayaashii iyo raggii tagay alwada waa qaaqla meeshaas aan qayliyaayo waxa weeye
background kaasaa gadaal ka fadhiyaayo qolkaydaasaan iska joogaayo cidaan lacag ka rabiyo cidaan lacag u doontay toona ma lehe laakiin raggii waxay soo laabteen iyagoo calaacalayo wada oynaya xafiiska ra-iisul wasaaruhu inuu furfuraa la rabay in dadkan baasha lagu kala furfuraa la rabay dadkan dowlad mayn arag waxqabadna hadda ma soo socdo waa la ogsoon yahay isdiidooyin siyaasadeed inay tahay waa la garanayaa oo meeshan laba danayste ay meesha ku jiraan ilaa xasanna dantiisuu meesha ka dhaxarkaa axmed madoobena dantiisuu meesha ka dhaxarkaa labada nin ee markays haysta hadba kii dhadhan roonaado bay bulshadu raacaysaa ilaa meesha waxa weye jidad lama dhisayo oo dabaqya lama dhisayo oo waxa weye buundooyin lama dhisaye waa isdiidooyin siyaasadeed adiga siyaasadaada marka haddaad doonaysa inaan kuu hirgeliyo waa inaad gacanta ka hadasho haddaadan gacanta ka hadli karin odayaasha dhaqanka qancin karin waxa weye qaaqlayaasha qancin karin wariyaasha qancin karin waxa weye dadkaas bulshada indheheeda aada qancin karin dee maxaa tahay adugu markaa siyaasadaada cidna ma qaadanayso meelaha marka dowladda federaalku ay ka dhaqaaqi laadahay ay wax ka qaban laadahay lagaga guulaysanayo waa xagga waxbixinta weeye xagga waxbixinta xisbigan markaa xoogaa horta waa aqwaan muslimiin oo xaggaas bay ka yimaadeen marka nimankaana waxaa aad iyo aad loogu eedeeyaa weligoodba gacan adayg wax la bixiyaayey ma yaqaanaan wax la qaato base yaqaanaan oo ninka ugu horeeya uu boobo marka taasna suurtagal ma noqonayso siyaasadda marka la fiiriyo jubbaland axmed madoobe oo aan taageero shacab xataa haysanin ilaa shacabka xoogun baa lagu haystaay ayaaba kaga horeeya xasankii sidii la filayeyba ma noqonin xamsiya xasan sidii la filayey ma noqonin haddii marka madaxda dowladdu ay sida hadday ku socdaan wax ka bedelaan shacab taageerana way helayaan way kasban karaan bulshada axmed madoobay ka horkeeni karaan